qormadan si gaar ah ama tabintan waxa aan ugu eegi doonaa ka waran adiga oo 28 sano oo xabsi ah hore lagugu xukumay xabsigiina ku jira in 10 sano oo dheeri ah lagugu daro waa arrin xanuunkeeda leh balse marka la eego kiisaska qaarkood ayaa waxa ay ka dhigaysaa in kiisba kiiskiisa uu ka culus yahay waxa aan ka hadlayo waa Cabdicasiis Faarax oo isagu kamid ah dadkii Soomaali Mareykanka ahaa ee loo haystay wax isdabamarinta musuqmaasuq ee ka dhacday gobolkaasi Minnesota oo shalay maxkamad hor leh ay 10 sano hor leh xukun ah ay ku riday xukunkiisii hore loo saaray kaliya ma ahan isdabamarin waxay balse inuu sidoo kale isku dayay asaga iyo rag kale iyo gabarba inay laaluushaan mid kamid ah xeerbeegtidii loo saaray kiiskiisa Imara Luxury Homes mar haddaadan Imara guryaha ayaal kumayso in ka iibsanahaynood intifaacsan karayn ma adaaba adduunka raaxadiisaba eegay dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekisa iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kastoo xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaanna soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Dennisbridge Road faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda sida idin muuqanaysa Cabdicasiis Shafiiq Faarax oo kamid ahaa dadkii Soomaali Mareykanka ahaa ee loo haystay lunsashada malaayiinka dollar ee barnaamijkii Feeding Our Future ee gobolkaasi Minnesota ee mashaqada faraha badan uu ka dhashay dadna ay ku dhinteen dibadbaxyada faraha badan ee ka dhacday Soomaalida loo jaafeeyay in badan oo kamid ah madaxda gobolkaasina xataa ay qaarkood shaqooyinka ku soo noqonaynin oo xilalka ay ka tagayaan gobernatooraha gobolkan uu ku jiro ayaa sal wuxuu u noqday shalay mar kale kiiskaas si gaar ah haddii aan ugu soo noqdo in ninkaasi 28 sano hore dambigii lagu helay mid horle lagu helay oo 10 sano oo horle loogu daray waxa lagu helay dambiga inuu ahaa ninkii hormuudka ka ahaa isku daygii la doonayay in lagu laaluusho mid kamid dadkii iyagu ahaa xeerbeegtida markaasi ka qayb galaysay dhageysiga dacwadaasi waxaana lagu helay sida maxkamadda gobolka Minnesota degmada St. Paul arbacadii shalayta ahayd ee ugu xukuntay 10 sano ninkaasi ay sheegtay in kaliya ma aha Feeding Our Future inuu malaayiin dollar ka lunsaday balse Cabdicasiis Faarax uu ahaa mid kamid ah 5 qof ee dacwadda lagu soo oogay kadib markii koox ayagoo ay isku dayeen inay laaluushaan xubin ka tirsan xeerbeegtida ayadoo ay gurigeeda ugu tageen isla markaasina bac lacag 120,000 oo dollar ay ku jirto ay haweenay xeerbeegtida kamid u geeyeen xilli ay socdeen doodahii ugu dambeeyay ee kiiskaasi qiyaanada sanadkii 2024 waxa sanadkii hore 2025 Cabdicasiis uu qirtay inuu laaluush isku dayay inuu siiyo xubin ka tirsan xeerbeegtidii loo saaray xaajadooda garsooraha ugu sareeya maxkamadda degmada St. Paul ee gobolka Minnesota ninka la yiraahdo Eric Tosterod ayaa waxa uu Faarax ku xukumay in uu qaato 3 sano oo kormeer supervised release wax loo yaqaan markii horeeto xukunkana uu ku dhameysto dacwadihiisa intii ay socdeen balse qayaano ayuu sameeyay oo asaga iyo kooxdii ku wehlisaba keentay inay dabin dambi oo horle ee lagu hala galaan taas oo keentay in la xukumo maxkamadda la soo saaro dambigiina ay qirtaan garsooraha ugu sareeya maxkamadda degmadaasi St. Paul waxa uu sheegay waxa uu ahaa ayuu yiraahday keeskan kiisii ugu adkaa abid ee la arki lahaa ee qayaano ee la xiriira maxkamad isla markaasina kooxdada ay isku dayeen in ay si wada abaabulan ay u sameeyaan Faarax ayaa ku eedeysnaa asaga iyo dadka kale ee la socdayba in ay kala dhaxbaxeen ama ay ka xusheen haweeney junior la yiraahdo oo 52 sano jir intii toddobaadyadii ugu horeysay ahba xeerbeegtida lama garan karo ayaa la yiraahday haweeneydan inay ahayd qofka kaliya oo aan cadaan ahayn inay u bartilmaameedsadeen inay ahayd qofka kaliya ugu yar xeerbeegtida inay u bartilmaameedsadeen hase yeeshee sidoo doontaba ha noqotee haweeneydaasi ayay kala dhaxbaxeen dadkii way la hadleen gurigeeda ugu tageen lacagta 120,000 oo dollar bay u geeyeen sida wararku ay sheegayaan hase yeeshee maxaa dhacay haweeneydaasi ayaa 120,000 dollar bacaha ku jira markii loo geeyay kadib waxa ay wacday booliiska waxa ayna la hadashay maxkamaddii waxay u sheegtay kiiska dhacay ayadoo argagaxsan waxaana taasi ay keentay in ayadii
loo aqoonsado halyeeyad qaran inay tahay ayagiina kiisas adag iyo dacwado iyo maxkamado hor leh ee arrintii lagu usii gelisay xukunka laaluush ee cabdicasiis faarax ayaa awalba iyada oo uu ku xukunaa 28 sano oo xabsi ah oo la xiriiray kiiska khiyaanada dhaqaalaha uu dhunsaday ee 300 milyan ah ee loo haystay waxay tanina noqotay mid dusha uga sii dartay markaasi 28kii sano ee horey loogu xukumay 10 sano oo hor leh oo ninkaasi uu markaasi xabsi ku sii qaadanaya taas oo ka dhigaysa wadarta guud in ay tahay 38 sano oo xabsi ah waxaa loo arkay inuu yahay ninkii ugu doorka weynaa ayaa la yiraahday cabdicasiis faarax shantii qof ee iyagu markaasi isugu timid si ay haweeneydaasi maskaxdeeda u bedelaan oo ay dhaqaalaha u siiyaan oo ay gurigeeda ugu tagaan oo ay uga rabeen in ay wax ka bedel ugu samayso maxkamadda waxaa sidoo kaleeta ninkan la leeyahay waxaa 8 milyan oo dollar oo lacag dowladeed ah oo loogu talagalay in la siiyo caruur yaryar oo gaajeysan uu jeebka si gaara ugu shubtay xilligii COVID-19ka 300 milyan waa la leeyahay marka guud ahaan wadarta dhaqaalaha ay dhunsadeen inay tahay ayaa loo maleynayaa shantaasi qof taasi bedelkeedana waxa uu lacagtaasi ku bixiyay ayaa la yiraahday alaabo raaxa leh inuu ku gato oo ay ku jiraan 5 baabuur oo kuwa raaxada ah hanti fara badan oo maguurto ah oo qaarkood ay ku yaalaan gobolka Kentucky qaarkood ay ku yaalaan gobolka Minnesota qaarkood guryo ay yihiin oo laga dhisay magaalada Nairobi iyo wixii la halmaala guryahaasi oo dhamaantoodba la sheegay in xataa lagu guda jiro soo celintoodii iyo dhaqaalahoodii sidii dib looga soo dhigi lahaa ninkaasi haddaba ninkan cabdicasiis ah ayaa waxa uu sheegay garsooruhu in uu ahaa nin waqti dheer uu siiyey xabsigan uu ugu talagalay inuu ku qaato qayb ahaan banaanka balse laaluush awgeed tani ee dembi adag oo culus ee lugaha u sii gelisay cabdimajiid maxamed nuur iyo cali iyo cabdikariim faarax iyo siciid faarax ayaa iyaguna qirtay inay ku lug lahaayeen fal dambiyeedkaasi ah laaluushka ay siin rabeen xeer beegtida marka laga reebo haddaba waxaa la yidhi cabdikariim faarax oo dabcan la dhashay cabdicasiis faarax iyo caliba dhammaantood inta kaleeto dadka kaleeto oo cabdicasiis uu ku jiro oo cabdimajiid maxamed nuur uu ku jiro waxa ay ahaayeen dad horay u galay iyo gabar kaloo ladan la yiraahdaba waxay ahaayeen ayaa la yiraahday dad horay u soo galay lunsiga dhaqaalahaasi loogu talagalay barnaamijkaasi feeding our future laakiinse dadkan kaleeto cabdikariim faarax oo ninkan la dhashay cabdicasiisa iyo ninkaasi calay un magaciisa lagu soo koobay waxaa la yiraahdaa waxay ku lug leeyihiin dambiga ah inay juuriga dhaqaalaha 120,000 dollar ah ay rabeen inay ku qanciyaan oo ay wax uga geeyaan lacagtaasi oo noqotay arrinta ugu hadal heynta badan xilligeedii markii ayaa dalbaday in cabdicasiis faarax lagu xukumo muddo aad u dheer oo ka badan 11 sano arrintan juuriga ayadoo markaas ay ku doodayaan in ciqaabteeda la marsiyo inay muhiim tahay qofkii geystay dambi khiyaano qaran ah oo heerkaasi uu u sareeyo isla markaasina ay u baahan tahay in si qoto dheer looga gudo khiyaanadii uu ku kacay ninkaasi iyo fal dambiyeedkaasi balse waxaa jirta in dhinaca kaleeto ay maxkamaddu ku xukuntay oo kali ah 10 sano oo markaasi loogu darayo 28 sano hore mudane faarax iyo dadka kaleeto ee dacwadda kula jira waxay qaateen tallaabo aan horey loo arag oo markaasi lagu weerarayo nidaamka cadaaladda iyo dimuqraadiyadda lafteeda maxkamadda horteeda sidaas waxaa ka yiri kaaliyaha xeer ilaaliyaha maxkamadda ninka la yiraahdo Matthew Murphy kaasoo sheegay sida arrintan ay u tahay mid argagax leh waxa ay muhiim u tahay in dhibaatadeedu ay u dareemaan dadkan dambiyada ee galeenna ay muhiim tahay in laga gudo oo markaasi ay xabsiga ku qaataan halkii loogu talagalay oo aanan marnaba laga qafiifin dacwadan ayuu yiraahday waxaa jirta in arrintan ay ku jiraan ama kiisaska noocan oo kaleeto ah hay'adaha kala gedisan ee laamaha Mareykanka ee dambi baarista iyo kuwa amniga oo xataa ay ka mid yihiin FBI-da ay ka mid yihiin sidoo kaleeto gudaha markii la eego hay'adda Homeland Security oo ay ka mid tahay waxaadna la socotaan dabcan yaan la iska indhatirin in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu u diray gobolkaasi Minnesota dhammaan hay'adaha amniga ee dalkan Mareykanka si ay dabagal xoogan ugu sameeyaan dadkan dhaqaalaha ay dhunsadeen halka ay ku bixiyeen sida ay wadankan uga saareen xataa waxaa jira shirkadaha kuwa xawilaadaha ah
oo ayaguna si hoose loo baarayo in dhaqaale intaasi la eg ay fududeeyeen oo ay direen kuwaasina waxa ay dambiga ku yeelanayaan ayaa la leeyahay in aysan maaragta question garaynin lacagtan halkay ku socoto waxa loogu talagalay cidda loo wado sida dadkan ay ku heleen iyo waxyaabo kaleeto fara badan waxyaabo badanna way fududeeyeen ayaa la leeyahay shirkadaha qaarkood la haysto qareenka haddaba u doodaya cabdicasiis faarax waa ninka qareenka oo lagu magacaabo Daniel Gerdes ayaa waxa uu codsaday in xukunkan laga qafiifiyo muddo 6 sano ahna laga dhigo oo kala bar laga soo qaado maadaama dhammaan dambiyadaasi cabdicasiis uu qirtay isla markaasina laga reebo muddo 8 bilood ah xukunkii hore loo sii dul saaray ee 28 sano ahayd dabcan waxaa jiri doonta xukuumada ma garan karo xukunka noocan oo kale wuxuu noqon karaa laakiin se gudaha dalkan Mareykanka waxyaabahan aragnay ayaa waxa kamid ah haddii qof la xukumo oo xabsi la geliyo waxa ka go'o maalmaha fasaxyada waxa ka go'o maalmaha weekendiyada waxa ka go'o shaqo wanaag hadduu sameeyo dambiyada qaarkood loo ogol yahay haddii qofka uu intuu xabsiga ku jiro uu waxyaabo fara badan u volunteer gareeyo oo uu maaragtay xabsiga iyo ammaanka iyo nadaafadda iyo waxyaabahaas uu ka qayb qaato waxyaabo badan ayaa u fududaada ayaa la yiraahdaa haddaba sida kiiskan uu culus yahay oo siday u leeyihiin dacwad oogayaashu ma u noqon doonaa mid loo fududayn doono lama oga ilaa iyo haatan juuriga dalkan Mareykanka ayaa waxa ay yihiin dad guryahooda ayagoo jooga dacwadda aan ka warqabin ay maxkamaddu u soo dirto waraaqado addresskooda loogu soo diro lagana codsado inay maxkamadda yimaadaan dadka waa dadka u dhashay waddankan la dhaariyo la yiraahdo kiiskan dhageysta waxa uu kula muuqdana noo sheeg kiisas fara badan oo xataa dilal ay ku jiraan ayaa juuriya loo saaraa markii xal ma aragtay la rabo in loo helo ama si gaara il gaara la rabo in lagu eego kiisaska qaarkood in kiiska la markaasi musuqmaasuqo oo la raadiyo xeerbeegti oo lacag lagu sabo oo lacag la isku dayo in wax isdabamarin lagu sameeyo ayaa dambi kaleeta ah sida xariga ninkan lagu sameeyeyba ka muuqanaysa haddaba kiisaska noocan la xiriira ee feeding our future iyo sidoo kaleeta dadkii loo haystayba ayaa waxa uu faraha la gala xataa qaarkood saad ogtiin toddobaadyo ka hor iyada oo dad laga soo qabqabanaya Soomaaliya dib halkan loogu soo celinayay waxa uu sal u noqday in mudaharaadyo waaweyn ay ka dhacaan gobolkaasi Minnesota iyo gobollo kale oo kala gedisan kadib markii la yiraahdo dadka soo galootiga oo dhanba ama Soomaalida si gaar ah waa dad wax isdabamarin badan waa dad khiyaano badan waa dad dhibaato sameeyay waa dad malaayiin dollar oo lacag oo dhunsaday oo loogu talagalay in ilmaha yaryariiska ah lagu quudiyo xilligii pandemic uu jiray balse si kastoo ay ahaataba inkastoo taasi laftirkeeda dad fara badan ay qalad u arkaan in Soomaalida gabi ahaanba la isku qabto kiiskan waxa uu noqday kiis hareeyay dacwadiisa guud ahaanba gobolka xataa waxaad ogtihiin in ka sokow dhimashada labada qof ee cadaanka dibadbaxyada ku dhintay ka sokow ay jirtay xataa in gudoomiyihii dhammaaya gobolka uu sheegay inuu dib isu soo sharaxaynin arrintan qaatiyaanka uu ka joogay aawad kumanaan kun oo ciidamada Mareykanka ee ICE oo lagu daadiyay halkaas waxay sal u noqdeen in dhalinyaro aad u fara badan oo boqolaal ah oo Soomaali ah si gaar loo bartilmaameedsado ganacsigii Soomaalida ayaa dhulka la geliyay dhibaatooyin xoogan oo ku dhawaad sanadahanba socon doona ayaa Soomaalida lugaha loo geliyay iyo xataa businesskoodii hoos u dhacay waqtigan aynu joognaba isla markaasina saameyntiisa laga cabsi qaba inay sii socon karto dadka uu ku jira Cabdicasiis iyo dadka la midka ah ee arrimahani dambiyada aqirtay in ay ka dambeeyeen ayaa haddaba haddii ayagu ay ku koobnaato Soomaali fara badan waxay u arkaan inay tahay xal maadaama sida ay leeyihiin dhaqaale lunsigaasi iyo wax isdabamarintaas waa wax ayaga kali u ahayd balse waxa ay u muuqataa sida dawladda madaxweyne Donald Trump ee dhowr jeer ku celcelisay in dadka Soomaalida ah ee degan gobolkaasi iyo guud ahaanba Mareykankuba ay qayb ka yihiin dambiyada la xiriira wax isdabamarintaasi waxa uu yiri Cabdicasiis oo maxkamadda horteeda ka hadlay ka hor inta aanan lagu dhawaaqin xukunkiisa maalin kasta waa ka qoomameeya oo waa ka shalaaya dambigan waana inaanan mar dambe ku lug yeelanaynin fal noocaas oo kaleeta ah oo meesha ka saaray fursadii ay ugu adeegi lahayn ama aan ugu adeegi lahayn bulshadeena gobolkeena iyo dadkeena ayada oo markaasi si sharaf ah aan hawshaas u qabanayna ayuu yiraahday Tesros ayaa waxa uu sheegay in cuslaanta dambigaasi ay sabab u tahay in lagu xukumo 10 sano oo xabsi ah taasi oo lagu darayo xukunkii hadda ka hor loogu
markaasi helay dembiga ah inuu wax isdabamarin sameeyey 28 sano ahayd tanina waxa ay ka dhigan tahay in dad fara badani lagu daba jiro kuwa fara badan loo xiray dambiyada noocaaniya kuwa kale tan ay saameyn ku yeelanayso